Sir saxaabyaal wararkii ugu dambeeyay haddii aan dul marno waxaa ka mid ah Dudula operation oo weli diidan in dukaanada la rejistareeyo dadkana ka dhadhacsiinayo in gebi ahaanba registrationka goobaha wax lagu rejistareeyo la xiro isla markaana ayaga ay qaataan ganacsiga iyo barnaamijyo kale oo weliba ay ku soo dareen oo micnaha dadku ay ku kicinayaan oo weli dowladda ay kusoo horjeedaan dowladduna weli wax tilaabo kama qaadayso. Sidoo kale waxaa lasoo sheegay in koonfur afrika ay line ama number qaasa u furtay waxyaabaha fake iyo waxyaabaha dhacsan marka complaint laga sameeyo, taasoo iyaduna micnahaanba aan la fahmi karin wax loola jeedo. waayo inta badan South Africaanku wixii dhacsan iyo waxay u begi waayeen inay soo furaan iska soo celi jireen. balse waxaan ku hormari doonaa Dudula bal waxay ay ka yiraahdeen isbuucan registrationkii iyo ninkii axmaqa ah hadlaayay bal. Would you say that South Africans have allowed, the township economy to get to this point in a sense that the landlords of these foreign spaza shop owners are South Africans? Are they also being, held accountable at this point? They are not held accountable, but before we blame the landlords, let's start from the root cause. Who allowed these foreigners to come and operate in South Africa illegally with fake documents? Some they don't even have documents. I used to hawk. I used to be a hawker. I used to barb in the street in Bramley. Police were raiding us. They closed my barber shop, but they left a Ghanaian guy who was suing to operate. Even here in South Africa, it's happening. Before we say the landlords made a mistake, let's conscientize them. Let's tell them that what you are doing, it is wrong. Government has money to finance tax shop, like the 500 million that the president said they are going to allocate for South Africans to run. waqtigii lagu lumiyay ma warkiisa axmaqaane bal fiidiyogiisa labadan aan ku socono bal wuxuu leeyahay hadda waa nin dowladdii aad u soo jeedinayo naagda wareysanaysana way ka darantay. Call these people landlords who have shops in their yards to say you must apply, you must change your papers to have a floor plan, go to the municipality and apply for 1, 2, 3, 4. Here's the process. But we are seeing South Africans that are registering shops on behalf of these foreigners, and there's a possibility that after you register for them and you apply the municipality for certain documents, you are taking responsibility of their tax matters. There's a 100% chance of them saying tomorrow, this is our property, because the business is registered under them. So as Operation Dudula, we are busy engaging also with landlords to say what you are doing is wrong, but the government must take charge. warkiisa intaasaan ugu gudbayna halaha ugu muhiimsan oo sheegay waxa uu dadka guryaha iskale oo dadka u rejistareynaya inuu ka dhadhacsiinaya in guryahooda lala wareegi kara haddii wax walba ay dadkaas ajnabiga rejistareystaan. waxaas waa xaqiiqda ka fogo qofka aqliga leh oo damirka loo soo afrikaan loo sheegin. Foodstuffs. You might want to get a pen for the story. I'm going to give you the number, but maybe I'll repeat it again just so you can write it down. So if you have any concerns, questions, or perhaps you think something is untoward, you can reach the service on 012 065 1940. I'll repeat it for you. It's 012 065 1940. Or, of course, you can head over to the National Consumer Commission's portals, their online portals. You can also report anything then there. The National Consumer Commission's Hardin Rachasusu says this was done following the deaths of all these school children from suspected food poisoning. warbixintan ayaa tilmaamayso in koonfur afrika waaxda macnaha macquul badqabka cunooyinka ay furtay number isla markaana numberkaasi uu ku saabsan yahay in dadka cunooyinka dhacay iyo waxyaabaha fake gaday loogu complain kari karo. ayadana sidoo ku shaqeeyo la arki doonaa warbixintaas kuwa ugu dambeeyay hadda soo dhacay ahaayeen. waana mahadsantihiin saaxiibayaal.